dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka aamusay walaaca iyo walaahowga sii kordhay ee ku aadan dhalinyarada Soomaaliyeed ee la sheegay in tababar loogu qaaday dalka Eritrea iyadoo sii kordhayaan baaqida loo jeedinayo madaxweynaha madaxweynaha dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh oo ka hadlay war ku saabsan xaaladda dhalinyarada Soomaaliyeed oo 2 sano ka hor tababar loogu qaaday dalka Eritrea kuwaas oo war iyo wacaalkooda la leeyahay ayaa sheegay in dhalinyarada loo geeyay tababar dalka Eritrea in ay yihiin kuwa la iibsaday. dhalinyaro adinkoo kala ah oo hooyo iyo aabe ay soo barbaariyeen oo ay juhdi badan iyo soo geliyeen dhalmada hooyanimo iyo midka aabanimo ka sokow maalgelin badan la soo geliyo wax la soo bariyo la soo barbaariyay ayaa la yiri dalkiina ayaad wax u noqonaysaan ciidan aan noqonaysaan dalka difaaciisaan qaar waxaa la yiri fursad la'aan iyo baagamuunde iyo shaqo la'aan idin haysa shaqan idin geynayna waa la qaaday waa la xaabiyay Eritrea lagu shubay tababaray ku maqan yihiin ciidamadii siyaasiyiinteena waa lagu handay waxa la ciidanka Eritrea imaanayo waa la dardara waa la xasuuqa ilaa waa niman dhalinyaro oo intan mageen ka baxeen la qalday xaqana la iibsaday waa la iibsaday maxaa ku tilmaami kartaa adiga wax kale oo aniga ku tilmaama qaan dhalinyaradaas waa la iibsaday. Sheekh Shariif Sheekh Ahmed madaxweynihii toddobaad ee dalka ayaa ku baaqay furitaanka baaris madax bannaan isagoo xukuumadda ka dalbaday in ay u jawaabaan waalidiinta Soomaaliyeed war iyo wacaal ka hayn caruurtooda. warbixin gaar ah oo ku saabsan xuquuqda aadanaha oo ay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in ciidamada Soomaalida ee lagu tababaray Eritrea in ay ka qayb qaateen dagaalkii Tigray ee sababay dhimasho kumanaan qof iyo barakac malaayiin kale taas oo sii murjinaysa walaaca ay qabaan waalidiinta Soomaaliyeed ee weysan caruurtooda. Fahmaha Haruun Cabdi warbaahinta Asal.